barqaduhu ku socan ku leh saas haddii ay fiican tahay ku soco ma awoodo ra'iisul wasaaraha aan wasiirkiisa ahayn inaan mushaarka xukuumadda aan wasiirkiisa ka ahay 3,000 ka mid kuu soo diro saaxiibada kalena dib baan ugu celin doonaa xoolahooda waxaa si gaara ii taabatay hadalkii ka soo yeeray in adeerkay xildhibaanka aqlabiyadda codka reer Somaliland lagu doorto barqad jaamac batuun uma taageeraynin inuu Somaliland yahay laakiin waxaan u taageeray inuu dhiigayga yahay in adeerkay yahay oo aan isku hayb dalad ka wada tirsannahay daladaas waxaan ogahay inuu xaraf diina idheer yahay maadaama uu 114 cadadka quraanka oo xafidsan yahay oo xaafid noqday anigu waan aqriyaa markasta quraanka ilmahayga hal gabara ku jirta inta kale waa wiilal 3 jeer ay dhamaysay qof la arko intuu ilaahay geliyo zaytuuni isaga iyo kuwa la midka xaafidiinta ah na waxaan leeyahay ilaahay ha u siyaadi annagana allah nasi laakiin cilmiga inuu wax ku taro diini imaadi ayaa haboon waliba hadda tahay qof islaam damqashada dadka Soomaaliyeed guud ahaan ay u damqadeen dadkaas wixii ku dhacay barqad ma garan waay barqad ma garan waayin inuu haddana sii abaaro ra'iisul wasaaraha dalka barqad ma garan waay laakiin xanfalay baa qaadataan leh ilaahayna ha ka soo celiyo naxariistaas qalbigiisa ha u geliyo waan ogahay siduu u hadlay waan dhageystay anaan waqti u haynin haddana meelo badan ay iiga soo dhacaysa oo la iiga soo diray markaan dhageystayna barqaduhu ku socan ku leh saas haddii ay fiican tahay ku soco barqaduhu xusuusnow dadka Soomaaliyeed dunida meel shay ka joogaan ayaa duca lagaaga soo aqri inta codka ku siisay waxaa ka sii dadaal badnaa inta duca habeen iyo maalin kula joogta oo ay ka mid yihiin dadkaas oo ay ka mid yihiin dadka ay ka soo jeedaan barqadow adigii dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hore waxaan u ballan qaaday baabuurkaasoo dareenkayga bedelay markii aad gaarigaaga u gaday dadkii codka ku siiyey ee dhibaatooyinka gaarka ku maray sida kuwa baahiyaha gaarka qabay iyo kuwa kugu umulay codbixintaada aniga ballanqaadka aan ballanqaaday akaan qadiijo leedahay lacag ku jirta ma ahayn ee waxaan ballanqaaday dadka aan saaxiib badan waa nasiib daro dadkaas dadka heybtooda dad kamid ah ayaa contributionka gaarigaaga wax ka bixiyay sidaad ii sheegtayna 9,500 ayaad gaarigaaga ku gatay waxaan andamacsanaana waa inaan $20,000 kuu soo diro maanta waxaan halkan ku hayaa 15,000 ka mid ah lacagihii aan soo aruuriyay oo muddo iyo agtaal waxaan la sugayay inaan ku daro 5,000 oo iyadoo 20,000 aan kuu soo diro in adeero lacagtan waxaa ka mid ah lacagta aniga aan ku daray oo ah $3,000
كمد وأنا مشاركة في وزير نمو أنكو قادنا 12 كن 6 qof food oo aan saaxiibo iyo ehelnahay iyo tol siyaasadeed ayaa min 2 kun aan ka qaad waxaan ula soo daahayna iyadoo lagu leeyahay aawa qadiijo baabuurka ay ku soo dirtay inaan 20 kun gaarsiiyo oo gaari muuqda aad ku gadato maanta dad heybtaas ka mid ah oo saaxiibanahay lacagta aan ka soo qaado aniga 3 kun oo 5 kun ku jirta waxaan samaynayaa dadkaas guddigii gurmadka koonfur galbeed u magacaawdo ayaan ku wareejin doonaa saaxiibada kalena dib baan ugu celin doonaa xoolahooda adigana waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu xaqa ku tuso garabkaaga galo wax kale kuma odhanaya waxaan ku leeyahay qadiijaay lacagtiina kala dir inta kaa maqana waxba ha ku daalin anigu aan fikirin oo aan cid kale ka soo ururinin waxaan ku ballan qaadayaa berito gelinka hore saacada ugu horeysa la furo macdarada barxad inuu gaarigii fuushanaan doono arintaasi waxa keenay anigoo iska fadhiyo oo salaada cishaa ka baxay gurigeyga iska fadhiya si yara caweynaya oo maxaan ku waraday wax iska daawanaya ayaa waxa igu soo baxday xildhibaanadaasi dalkaaynu jaarka nahay Soomaaliya magaceeda Khadiija la dhaabaan u malaynayaa inkastoo aad u aqoonin sidii maxaan ku meesha ku qornayd markaasi waxaan arkay Khadiijo oo yacni wax laga yara xishoodo oo ma aragtay aan aad u la yaabay xildhibaan barxad jaamac batuun la hadlayso lacag tirtirinayso barbaa iga maqan oo wan maxaan ku dhahday soo buuxinaya intana aniga bixiyo wala noqonaya maxay marka waxa weeyaan kaliya waxaan waan u adkeysan kari waayay yacni maxaan ku dhahday waxa weeyaan marka xildhibaan qaran la taabto siiba kuwan ugu jecelahay iyo madaxdeeda qaran marka la taabto waxa weeyaan waana la taabtay Soomaaliland oo dhan baa la taabtay oo qof wala Soomaaliland dara maadaama arintanina waliba ay tahay arin iyaga u gaaro personal iyaga ka dhaxaysa aan ahayn ee ay tahay arin maxaan ku dhahday qaranka khusaysa tani ay uga jawaabayso ay leedahay lacagtii baan kala dirayaayo gaarigii waan ka joojiyay horta waxaan oranayaa Khadiija kullu dumar waxaynu nahay muslina kabacdi dumar Afrikaan aynu isku nahay taasi marka la soo dhaafo laba qaran aynu kala ahaano ee waxaynu nahay dumar Soomaaliyeed wada nahay marka aflagaada kuma geysanayo waxa maxaan ku waraday personal attack-na kuma sameeynayo kaliya waxaan ku sheegayaa barxad jaamac batuun wax xalaal maal sida Soomaaliland dariska maxaan ku 99% yihiin marka hadii uu doonayo uu xalaal doonaynin gaari uu iibsan lahaa maaha ee maxaan ku dhahday 20 kun maaha $50,000 buu mid siisan kari lahaa dhowr biloodkii oo shaqaynay sida loo jecel yahay iyo waxyaalaha u suurta gali lahaa inuu sameeyo waxaan arkayaa maadaama maxaan ku dhahday qofta uu yahay xalaal maala adigiina ad qof weyn adigoo oo inaan dhalinyaro oo caruurteena maxaan ku dhahday ama lamid ama waxoogaa uu ka weyn uu yahay inaad ma aragtay maxaan ku dhahday lacag ugu ad ku dhafoortaabato ka wax kale kuma odhanaya waxaan ku leeyahay qadiijaay lacagtiina kala dir inta kaa maqana waxba ha ku daalin anigu aan fikirin oo aan cid kale ka soo ururinin waxaan ku ballan qaadayaa berito gelinka hore saacada ugu horeysa la furo macdarada barxad inuu gaarigii fuushanaan doono 20 kun haduu noqdo 30 kun haduu noqdo gaariga uu magaalada Hargeysa ka jeclaado haduu isagu doono inuu meel kale u dirto taasi waa gooni laakiin balla waxaan kuugu qaadayaa berito barxad gelinka hore inuu gaarigaasi Hargeysa ku dhaxashi doono hadii Ilaahay yiraahdo qaranka Soomaaliland wuu ka mid yahay wax ma aragtay maxaan ku dhahday lacag yar yar loogu hanjabo maxaan ku dhahday iyo qaraadiis yar loogu hanjabo Soomaaliland iyo Hargeysa ciideeda lacaga Itoobiya bariga noo qaxnay
ربين إلهي محن كوردكو درس سبحانه وتعالى يا كلمة وحنا لو جد عايدين شروا وادوجيت ولا ورين شري ده كان ما ولا ده محن كورد العكس سميني سبا كان تسوق قرن كوت جواب يا هذا